السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرضي سو دhowaada meel kasoo daafaha caalamka aad ka joogtaan waa macalin maxamed jaamac kusoo dhowaada hoyga laga barto cilmiga IT-ga ee loo yaqaano Sahal Software culum badan ayaa website-ka ku jira aad ka baran karaysaan IT-ga iyo weliba culum kaloo fara badan si gaar ah xiisaddan waxay qosaysaa ardayda xiisaysa coding haddaba code waxaan ku leeyahay saaka with Sahal Sahal code with Sahal ayaa saa ku leh yacni halkan waa meesha ugu wanaagsan ee aad ka baran karaysid cilmiga codinga computerka inaad la sheekaysatid oo adiga computerka aysan cidin dhexayn inaad samayn karaysid barnaamij kasta oo aad u baahan tahay oo maskaxaada ku soo dhaca ayaad halkan ka baran karaysaa waxay noo socday luuqadda la yidhaahdo javascript waxay ka mid tahay luuqadaha codinga ee wax lagu sameeyo si gaara luuqaddan waxaa lagu daraa front endiga qolada la yidhaahdo ee websaydyada inta badan xagga sameeya ayaa lagu daraa javascript waa luuqad dadka websaydyada raba inay sameeyaan ama software engineer noqonayaan kama maarmaan laf dhabar bay u tahay sidoo kale xilligan mobilada xitaa applicationada lagu sameeyo javascript waa la isticmaalaa meelo badan bay hadda javascript gashaa marka waxaan soo dhigay 22 cashar hore casharkan wuxuu noqonayaa casharka 23aad waxaynu casharka ku saafmeeri doonaa qaybta koobaad ee luuqaddan aan ugu talagalay ee loo yaqaano part 1 casharkan ayaynu kusoo afmeeri doonaa haddii ilaahay qadaro part 1 kadib waxaynu bilaabi doonaa partiga labaad ama qaybtii labaad ee luuqaddan ayaan bilaabi doonaa casharka markaa qaybta basiga ayuu casharkan u dambeeya haddii ilaahay qadaro part 1ka waa basic weeyaan waaya ilaa haddeerto si fiican baad ila socotaan saan rajaynayo casharadana waad ku raaxaysanayseen waxaan casharada idinku soo diyaariyey qaab aad u sahlan oo aan isleeyahay qof kasta ah oo xitaa aan horey xitaa aanu aqoon luqaddan uu baran karaya aan isleeyahay keliya inuu qofku yaqaano HTML iyo CSS labadaasna horey ayaa website-ka u yaalaano website-kana code with Sahal ama Sahal Software ayaad ka soo helaysaa insha Allah waayahay keliya waxaan kaa rabaa waxa weeye waa inaad practical laga daba samayso cashar kastoo aan sameeyo practicalkiisa markaan sameeyo adiguna practical laga daba samee kadibna maskaxaada tuujiyo waxyaabo kaloo dheeriyana markaa samee insha Allah casharka 23aad wuxuu ku saafmari doonaa type of wax la yidhaahdo ama type of operator type of muxuu isaga caawinaya type of wuxuu kaa caawinayaa you can use javascript type of operator to find saa u heshid type of javascript variable yani variable kuu samaysan nooca data typeka uu yahay markaa rabtid inaad ogaatid ayaad isticmaalaysaa amarka ah type of operator maxaa looga jeedaa qofka siisoo markuu codinka baranayo ama uu rabo inuu software la sameeyo waxaa laga yaabaa marka qaarkood wuxuu la kulmayaa caqabado errors buu la kulmi karaya marka tusaale ahaan haddaan ku idhaahdo 4 lagu daray 4 waa imisa waa 8 waa isla garanayna haddaan marka taas waxaan uga jeedaa 4 lagu daray 4 waxaan uga jeedaa waxaan ku soo baray 8 nooc oo data type ku soo baray mid walba tusaalayaashiisii baan ku siiyey qaabka loo samaynayo qaabka loo abuurayo errorska haddii ku yimaado si loo xalinayo waa soo wada aragnay 8 nooc waa soo aragnay concept fiican baad haystaa 8 nooc okay sabran ku soo baray waxay 4 lagu daray 4 bay ahayd 8 markaa ku dartii oo kale aan ku soo baray tusaale ahaan markaan rabo inaan hubiyo hadda in xisaabta 8 ku dartahay waxaan leeyahay inay tahay waxaan ku wangaray 8 haddii laga jaro 4 maxaa soo baxaya 4 ay soo baxay soo marka qofka ku dartay yaqaanaa waxa kaloo muhiim inuu barto ka jartana inuu yaqaano hadduu wax soo inuu kala jari karayo saas si leeg haddaan 8 nooc ku soo baray haddii for example error uu ku yimaado kale ama aad ka shakidid variable-kan xogta uu ku hayo talo muxuu ii hayaa leedahay waxaa loogu talagalay miisaankiisa waa type of inaad eegtid oo tiraadid variable-kan type of-kiisa ii sheeg dabeedna browserka uu kugu soo tuuro ama console-ka uu kugu soo tuuro type of nooca uu yahay variable muku baxin haddaba kumaaga muku baxay waayo practical aan ku siiyo saadi fahdin waxaynu ka soo hadalnay oo soo baratay string iyo number xilligii aynu ka hadlaynay data type-yada okay waxaan rabaa inaan string iyo number hubiyo variable xog noocaas aan ku qoray
ما string ba mise waa number inaan hubiyaan rabaa tusaale ahaan okay kaliya waxaad samaynaysaa waa kan example-ka waan kuu diyaariyey laakiin aan ku geeyo Visual Studio aan ku geeyo meesha korka lagu qoro halkan aan isla eegina daawo intan waa taqaanaayda waad soo baratay waa iska HTML basic waad garanaysaa meeshaan u socdo waa ilaa halkaas weeyaan JavaScript ilaa halkaas ka furanta halkaas ku xiranta intan aynu isla akhrino script ayaynu furnay waxaan document.get.id inner.html oo ah browserka banaanka waxa lagu soo bandhigayo maxaa lagu soo bandhigay equal waxa ku soo bandhigtaa hadda ay raado tape of double quotation inta haddaan qoro double quotation kaasi muxuu yahay waa data type noocaya hadda waad garan kartaa double quotation haddaad soo baray waa inuu banaanka inoogu sheegaa data type-ka double quotation-ku waa string waa inoo sheegaa intaasaan ka rabnaa calaamadan br iyo intan waxa weeye waa line break oo line-ka labaad wixii ugu qor oo waxa ku sii daba qaban tape of waxaan haddana weydiiyey Mohammed laakiin Mohammed maxaa ka horreysay double quotation waa ka dambeysay isagana muxuu odhan doonaa Mohammed iyo waxa mar haddii double quotation meesha uu soo galayba tanna wuxuu leeyahay waa string bay oranaya mid kale ayaan tape of Cabdirasaaq Maxamed ayaan qoray space baa halka u dhaxaysiyay laakiin double quotation baa kor uu ku dambeeya haddaad soo xifdisan tahay kana waxaad leedahay shaki ma loo macna kana waa maxay kana waxaad leedahay waa string weeyaan waa string way tape of zero ayaan zero maadaama xisaab tahay double quotation aan raacin hadda double quotation ka horreysay la ka dambeysay la zero gaas wuxuu tirin lahaa inuu string yahay laakiin mardan zero double quotation aysan lahayn wuxuu oran doonaa kan waxa weeye waa number buu waa number ayuu soo qoraya waa number haye tape of 314 baan qoray oo de zero isticmaalada soo suud ma kana muxuu oran doonaa wuxuu oran doonaa isagana waa number ayuu oran doonaa uu soo qoray number buu okay 3.14 ayaan iri oo markaan maxaan isticmaalaa decimal point baan isticmaalaa iyadana waa inagii hore u soo niri dhammaan barnaamijka JavaScript luqadani dhammaan waxa soo whole number oo dhan number ayaa la isku qoray maca decimalkiisa number buu oranaya hadda maxaan sameeyay 3 bracket baan geliyay oo qoys bracket waa ku xiray maxay noqonaysaa iyadana waa number waxa soo maxay noqonaysaa number marka waxay 3 oo lagu dhex daray +4 laakiin bracket ku jirta iyadana maxay noqonaysaa number marka banaanka maxay ka soo baxaya waxay soo baxay 1 2 3 string iyo 1 2 3 4 5 number ay soo baxdaan waxa halkaas uu sharaxay ku raaxaysanay waa in browserka hadaan soo kiciyo waa in inta ka helna aynu isla aragno aan tirtiro aan intaas example kala duwan maxaan ku siinayaa in number iyo string aad kala aqoonsatid number iyo string aad kala aqoonsatid ay isku khaldami karin ayaan uga soconaa intaas hawl uga soconaa waa kana filaya wanka weyn tirso 1 2 3 1 2 3 4 5 soo jeed wakaas waynaad marka adiguna aad iga daba tijaabi karaysaa way casharada waan ku soo diyaariyay waan ku soo bisleeyay waan ku soo kariyay waa ku riday cun oo kaliya bas shaqo kale adiga laga doon maayo way aan aad tusaale labaad soo qaadanayo tusaale labaad waxaan kugu siinayaa database aan ku soo baray isagana ahaa big integer soo ma jiro soo bar big integer tusaalahan isagana big integer isagana I know uu ku qoray buug halkaas ku yaala waad copy garaysan karaysaa xagga Visual Studio aan kugu qorayo waad ka qaadan kartaa halkaas big integer halkaas asna lagu xiray isagana aynu isla eegno isla eegno waa lesson 11.2 ayaan wala baxay waa kan isagana oo isagana maxaan qoray inta waa isla dhaqaana marka isaga si kala ku tusaya halkan aan ku abuuray let x baan abuuray variable x big integer xogtiisa baan geliyay soo wajid dabeedna banaanka maxaan uga yeedhay tape of x baan u yeedhay markan waad garanaysaa sidaan aan ku soo baray horaan ku soo baray tape of x maxay soo bixi doonaa maxaan ka rabaa inuu soo baxo ila tape of baan in shaqcidu yahay qofkan xagbigu ka tirsan waa reerkee waa inuu yiraahdo waa big integer yiraahdo bis intaasaan ka rabaa inuu ii sheego uu yiraahdo numberna maaha kan stringna maahe waa big integer weeyaan data type loo yaqaan big integer iyo numberka farqi baa u dhaxeeya waanagii hore ku soo baray marka waxaan leenahay isagana na tus baan leenahay waxaad sheegaysid maxaa ka jira wakaas automatic soo jeed big integer ka uu soo tuuray okay kana waxa filaynaa isagana aad fahamtay example saddexaad 10 ugu talagalnaa ku siiyo waxa weeyaan undefined hadduu shay yahay isna data type moogaan karaya nooc uu yahay isagana koorkiisu ka soo ku qoray ku soo diyaariyay
keliya copy garay oo paste garay tijaabi kadibna maskaxda tuujiyo wax kala qor insha Allah waa ka isaga let car ayaa la abuuray variable car leedo marka double equal waxba lama siin marka waynu soo qoraa undefined yidhahda undefined waynu yidhahda xaggan aan isla tagno isagana waa kan 2 oo 3 ga isaga let car take car off car waynu marka isagana isoo turaa undefined waynu yidhahda aan xagga browserka tagno aan click siyo isagana wakaas waa maxay waa undefined weeyaan waxaan rajaynayaa marka inaad si fiican u fahantay tape of wax looga jeedo aad mar kastana aad practical ka maarmaysid waan hubaa haddaad luuqadan ku shaqaynaysid oo aad website samaynaysid ka maarmaysid inaad iska hubisid shaygii soomaalida maxay tahay hubsiyo hal baa la istaa soo ya ka maarmaysid insha allah inaad isticmaashid marka casharadan waqti badan ayaan geliyey waa kuu soo diyaariyey waa kuu soo bisleeyey waa kuu kariyey run oo keliya bas kuna raaxayso insha allah ducadu waa xaggaaga kaa codsanaya muuqaaladan si ay kuu soo gaaraan haddii kusoo gaaraan share gare channelka subscribe saaro youtube ka mar walba xogta uga heshid ardayda saartar ka mid noqo isdiiwaan geli oo akoonkaaga mar walba active kuu noqdo si aad projectyada kuwa samaynaya uga mid noqotid aad u guulaysatid sidoo kale ardayda waxay leeyihin xilligan whatsapp group ay leeyihin halkaasay ku tababartaan oo lagu caawiya waxay u baahan yihin inay kusoo qortaan marka soo dhawow waxaan rabaa inaan soo saarno marar badan horena waan soo saarnay arday software engineer ah oo ku raaxaysta suuqyada adduunka daafaha caalamka ka shaqeeya waa soo saarnay alxamdulillahi rabbil caalamiin welina waa wadaynaa intii awoodeynaa inaan soo saarno casharadanna weliba aan intii aan fududayn karno aan si fududayno marka adigu nagala qayb qaado muuqaalada sheergare arday badan baa baahi weyn u qabta oo raba inay software engineer noqdaan ama ay codinga computerka bartaan insha allah qaybtaada ka qayb qaado u sheergare insha allah ballankeena waxbaro shaqayso maal gasho waarmaysa warka hadho asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu